munaasabadan oo lagu xusayo toddobaadka badbaadada wadooyinka qaramada midoobay ee Soomaaliland ee 6 bisha May ilaa 12 bisha May ayaa lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka saraakiisha ciidanka ilaalada wadooyinka Togdheer iyo dadweyne kale ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay siduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Maxamed Kaariye Muuse iyo maamulaha wasaaradda gaadiidka ee gobolka Togdheer Cabdicasiis Maxamed Jaamac iyo taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka gobolka Togdheer Kabtan Jaamac Ismaaciil ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinka shilalka gaadiidka. ujeedada iyo siyaasadda wasaaraddu waxa weeye in la yareeyo dhibaatooyinka ay keenaan shilalka gaadiidka oo muddadan aad inoogu batay taasoo ay kalifiso mas'uuliyiinta gaadiidka oo aan liisamada iyo aqoon badan u lahayn habka wadista gaadiidka marka waxa weeye iyo baabuurta oo la saarayo tankooda wax ka baxsan arrimahaas annaga iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinku oo la ballaaran baanu hadda iyo ka horba kaga jiray taasina ma dhici doonto mar dambe dhalinyarada gaadiidka darawalada ah in ay liisamada qaataan wixii aan haysan hadda kadib ma dhici doonto cid liisan la'aan loogu dul qaadanayo iyo gaari overloadsida oo intii loogu talagalay in ka badisada waxaan maanta halkan ugu soo xidhmaya 7 casho oo ay wasaaradda gaadiidka iyo qaramada midoobay iyo laanta traffic iska kaashanayeen oo loogu magac daray toddobaadka badbaadada wadooyinka ee qaramada midoobay wasaaradda gaadiidku waxay mar walba u taagan tahay inay safety-ga iyo badbaadada ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qayb qaadato waxay keentay si loo badbaadiyo dadka waxa la sameeyay in liisanka la casriyeeyo si adagna loo qaato waa maalintii badbaadada gaadiidka ee qaramada midoobay annagu qolada wasaaradda gaadiidka iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka ولكن كجري مالمهن مدائما قوية ما يهين شقاء عصور سوكر بيني وشقاء عادي النوع هي تايدي بها لكن وترتر قلم بها gudoomiyaha shirkadda caymiska takaaful ee gobolka Togdheer Deeq Axmed Yuusuf iyo xogayaha dawladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur ayaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay waxaan ku hadlayaa magaca takaaful Insurance of Africa ee gobolka Togdheer ruuxantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqada wanaagsan ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka wado muddo laga joogo 5 sano niman reer Soomaaliland oo dhalinyaro ah waxay fakareen inay bal Soomaaliland keenaan nidaamka la systemka insurance-ga wuxuu ka jiraa muddo 5 sanadood alxamdulillah horta imika gobolada galbeedku si fiican bay u fahmeen insurance-gi insurance-guna wuxuu ka hortagayaa khataraha asbada tan qiimaha leh ee toddobaadka badbaadada wadooyinka qaramada midoobay ee Soomaaliland aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa liisanka in la adkeeyo liisanka in la adkeeyo waa daruuri waansan u baawaajin horta caruurta lagu waaniyo ama qofkan gaariga loo dhiibiyo lagu waaniyo bani aadamka naftiisu waa qaali